kulan wacan wanaagsan idin ahaantiin baa meel walba joogtaan iyo si walba sar maqalkeen idiin soo gaadhay ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hanjabaad hawada soo mariyay xilli la sugayay inay doorashadu dhacdo 15 bishan May ee ku guda jiro waxaa sidoo kale maanta ugu dambaysa diiwaangelinta musharaxiinta xilka u tartamayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa sidoo kale halkan aad ku maqli doontaan safarka madaxweynaha oo ayadana aan ku soo qaadan doono faahfaahin ka soo baxayso magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in musharaxiinta qaar ay naftooda kala carareen magaalada Muqdisho xilli lagu wado in doorashadu ay dhacdo 15 bishan May ee ku guda jiro maxay tahay hadaba cabsidani ay qabaan musharaxiinta qaar ee haatan la sheegayo inay wadanka iskaga carareen waxaa sidoo kale aad maqli doontaan musharaxiin ayaguna ka tanaasulay tartanka ay la geli lahaayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale midowga musharaxiinta daawadayaal qodobadaasi ayaanu halkan ku faahfaahin doonaa haday tahay markaad kuugu horeysay barteena YouTube-ka aad soo boqoto channelka subscribe saar oo gaadsii asxaabtaada kale hadii hore aad noola joogtayna daawashadaada halkaasi ka sii wada barnaamijka waxa igu heliyo santaag wadanka doorasho ayaa ka dhacaysa waxaana lagu wadaa in ay dhacdo taariikh 15 bishan aan ku guda jiray ee May waxaana haatan la sheegayaa in ay cabsi ka jirto magaalada Muqdisho xilli musharaxiinta qaar ay ka tanaasuleen xilkii ay u tartami lahayn qaar kamidana la sheegayo inayba wadanka iskaga carreen hadaba maxay tahay faahfaahimahan ka soo baxay magaalada Muqdisho iyo cabsidan xildhibaanada qaar ay aandhahe musharaxiinta qaar ay qabaan ay ku aadan in ay ayba ka tanaasuleen ba in naftooda ay ku haligaan xilkan dartiis بسم الله الرحمن الرحيم مدة الصومالية هرت وسلامينا أديكنا ومحسن تاي سؤال شادي وديسات أنا قد قلوا معلميه وجودا بيسيبا محمد وحاس سعودي باقيو كسو بحيي مدوغو مشرحينتا iyo dadka danayaasha doonayay inay u tartabaan xilka madaxweynenimada dawladda federaalka Soomaaliya waxaa sidoo kale taayadana intaasi garab socday ololihii doorashada oo cid walba ay doonayso siday u kasban lahayd codka xildhibaanada oo la sugayo inay dhacdo 15 bishan May ee hadda aan ku jirno waxaa sidoo kale iyadana garab socotay intaasi dhaleecayn iyo waxa weeye ay iyo aflagaado loo soo jeedinayo ciidamada qaranka Soomaaliya oo la lahaa waxay u janjeeraan dhinacaya u janjeeraan association ay sameynayaan amni darro ay beerayaan dhibaato ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed xasuuqayaan shabaab ay noqdeen ceebo badan oo loo soo jeedinayay oo dad ayagu maaragtay dana gaar ah kale inay ceebeeyaan doonahaya ciidamada militariga dalka Soomaaliya ay soo jeedinayeen ayaa jirtay haddii marka aan faahfaahin ka bixino intaas oo qodob ee isgarab socday midowga musharaxiinta waxaanu qayb kamid ah ayaa rajabeel ka qaba doorashada soo socota ee dhici doonta 15 May taasi oo marka ay doonayaan inay ceebayn kaga tagaan dawladda federaalka oo sidaas ay kaga haraan oo ay ceebayaan ciidamadu ay ku tilmaamaan inay ciidamadu hal dhinac ay u janjeeraan isla markaana ay beegsanayaan midowga musharaxiinta iyo ammaankana ay khalkhal gelinayaan doorashada oo aan lagu haleyn karin aan la isku haleyn karin doorashadaasi waxay qaarkood tilmaameen in aan doorashada ka qayb gali karin haddii sidan ay ku sii socoto taasi oo micnaheedu ay tahay markii horeba inaysan ayagu waxba haynin oo afun ay meesha ku hayeen sida burka kale ayay ahaayeen oo maartay doonaya ninka burka la baxay oo maartay yiri waxaan u taaganay madaxweynaha camal ay markii horeba ahaayeen magac ayay ogala jeedeen inay bulshadu barata ay ka rabeen maysan ahayn dad u bisil siyaasadda ama u barbar dhigi kara kursigaasi waa kursiga madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya kaasi oo adag oo nin adag uu soo istaagi kara wacanow oo ay adag tahay xataa shuruudaha ugu horeeya in laga gudbo waxaana marka ay bilaabeen dhaleecayn iyo waxa weeye cabasho ay ka qabaan ciidamada oo ay soo jeedinayaan oo ay ku ceebeynayaan ciidamada sharafta leh xilligaad aragtay doorashadu ay khalkhalka gashay soo taagnaa oo maartay amniga sugayay oo u barbar dhigay naftooda oo dhiigooda u horay iyadoo argagixisa ay magaalada Muqdisho ay haysato oo qaybna aysa dawladdu ay ka haysanin marka waxa weeye waxba kaba jiraan weeye amni darradan magaalada dhexdeeda lagu tilmaamay magaalada Muqdisho waa amni nabad baa ka jirta ciidamadu waxa weeye ciidamo qaran cidna dhinac uma jiraan dhinacna uma janjeeraan waxay sugayaan ammaanka musharaxiinta haddii aysan ciidamada federaalka aysan ilaalinaynin naftigooda magaalada maysan joogeen oo naftooda kumaysan aamineen si amniya ay magaalada u dhaxmaraan oo ay u tartamaan doorashadii baarlamaanka si nabadgelyo ay ku dhacday ciidamada qaranka ayaana ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaana sugahaya amniga kuwa militariga kuwa booliska dhamaantood waa ciidamo naftooda u horay oo maalkooda u horay oo waxa weeye sharaftooda u horay inay shacabka Soomaaliyeed ay badbaadiyaan oo ay ka difaacaan cadow
aad baa mahadsantahay waxaa jirto diiwaangelintii musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha ayaa weli socoto maanta ayaana ugu dambayso waxaana dadka qaar ay isweydiinayaan maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in ilaa iyo xilligan uusan isdiiwaangelin shahaadada qaadanin dadka lasoo sawiray sawiradooda baraha bulshada soo dhigay ee shahaadada qaateen ka mid ma ahayn walow xalay uu hadlay oo uu sheegay inuu xilka u taagan yahay isla markaana uu ummadda Soomaaliyeed iyo xildhibaanada ku matalayo golayaasha shacabka aqalka sare dhammaantood in uu ka codsaday inay taageero siiyaan oo u muujiyaan in ay yani uu xilkana u taagan yahayna uu ummadda u sheegay maxay tahay dadkan qaar baqdinta ay qabaan waxaana la sheegaya maxay isku soo beegay shahaada qaadasho la'aanta iyo sidoo kale safarka uu ku aaday dalka Ethiopia horta madaxweynuhu safaradiisii iyo heshiisyo caalami ah ayaa jiray oo dawladahan u dhaxeeyay dawladahan waa daris dana ayaa ka dhaxeeya welina xasaanadii madaxweyne ayuu hayaa oo weli lagama qaadin waxayna ka dhamaanaysaa markii madaxweyne kale la doorto haddii isaga dib loo dooranba waayo madaxweynuhu ma jiro cabsi hadda wadanka uga bixi karo ama dan maaragtay aan ahayn danta qaranka oo u baxaya hadda ma jirto dhinaca shahaadada qaadashadeedana waa madaxweyne horta xasaanad haya ma aha qof maxaa weeye rayad ah oo sida hadda madaxdan kale hadda qaadanayso kaleeta ma aha oo qof shacaba ma aha wuxuu ku qaadan karaa loogu geen karaa isagoo madaxtooyada jooga wuxuu usoo dirsan karaa wakiil buu usoo dirsan karaa shuruudihii oo dhan intuu usoo dhiibo waxaa u geen kara guddiga naftirkooda u qaabilsan ayaa u geen karaa madaxtooyadii dalka looga arriminaya ayuu joogaa oo lagu siin karaa goobta lagu bixinaya naftirkeedan ka dheereen madaxtooyada waxa weeye wuu tegi karaa marka ma jirto horta waxa caqabada ama u diiday ama maaragtay dhib ah oo maaragtay meeshaasi ka taagan oo hadda la dhihi karo la taaban karo oo dhageystayaasha maanta loo soo jeedin karo madaxweynaha wuu qaadanaya wuxuu cadeeyay xalayto khudbadiisii ku aadanayd oo ku codsanayay ama uu ku cadeynayay inuu maaragtay uu u taagan yahay xilka madaxweynaha mar labaad uu taagan yahay wuxuu baarlamaanka ka codsaday in ay doortaan oo mar labaad ay doortaan wuxuu soo bandhigay hadafkiisa iyo wax qabadka uu doonayo 5 sano soo socota inuu qabto wuxuu sidoo kale ta sheegay goobihii uu maaragtay wax ka qabtay iyo dawladnimada Soomaaliya iyo waxa weey dhexaadnimadii dawladaha kale iyo sidoo wax qabadkiisa uu soo bandhigay wayna cadahay oo ummadda Soomaaliyeed way aragtaa marka waxa weey madaxweynuhu safarkiisana waxa la sheegay in uu la kulmahayo madaxda ugu sareysa dalka Ethiopia iyo madax ka socota dalka Eritrea oo halkaasi ay kulan ku wada yeelanayaan waxaana looga arinsanayaa ammaanka iyo arrimaha doorashooyinka naftirkeeda Soomaaliya iyo sidii inay taageeraan oo naftirkooda maadaama wadamo daris ay yihiin dhexaad ay ka noqdaan arrimaha doorashooyinka halkaasi ka socda wakiilada u jooga naftirkooda inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya hadda kala guurka socda waxay sidoo kale ka wada hadli doonaan arrimo caalami ah oo waagi hore iyo saaxiibtinimadii hore iyo dawladdu wax wada qabsigii lagu heshiiyay naftirkooda in la sii adkeeyo waxay sidoo kale uu dardaaran u soo jeedin rabaa madaxdan oo saaxiibo dhow ay ahaayeen oo uu u jeedinaya madaxweynuhu in haddii isaga uu soo bixi waayo naftirkeeda ay la sii shaqeeyaan Soomaaliya cid walba oo soo baxda oo aysan maaragtay aysan noqonin saaxiib kaliya farmaajo iyo u dhaxeeyay labadaasi mas'uul aysan ahayn oo ay tahay saaxiib u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia u dhaxeeyeen ugu dambeyntii Santiago adoo soo koobayo waxaa jira saraakiil kamid ah ciidamada dalka Soomaaliya kuwaasi oo hanjabaado kala duwan hawada soo marinayo ay kamid tahay ama ugu baaqayaan xildhibaanada haddii ay dooran waayaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo in ay khalkhal amni abuuri karaan ama ay afgambi kula wareegi karaan arrinkaasi maxaa loo fasirin karaa horta waxba kama jiraan weeye nin sargaal ah oo ummad Soomaaliyeed xukuma oo sargaal sare ah intuu banaan iska soo istaaga hebel hadaa dooran weydo waa khalkhal amni baa dhacaya taasi horta waxa weeye waa sheekada banaanka bumbuunin macnaheedu waxa weeye midowga musharaxiinta qaybo kamid ah ceebayntii iyo aflagaadadii ay ciidamada u wadeen oo ay baraha bulshada u isticmaalaan weeye waa dad quursaday oon tabar lahayn waa dad ka quursaday inay cod xataa hal cod ay helaan ka quursaday weeye waa dad aan rajo lahayn oo mustaqbal aan ka lahayn xataa inay madaxweyne ay ka noqdaan dalka Soomaaliya waa dad intay siyaasadda xilli kooban soo galeen oo ay wax boobeen wixii ay boobeenna aan ku filaanin oo soo dhameysteen haddana meeshii ay ka geli lahaayeen raadinaya gacanna waxba aan ku haynin weeye ummadda Soomaaliyeed iyo ciidankooda iyo waxa weeye inta Soomaalinimada jecel iyo nabadgelyo in Soomaaliya horumar gaadho jecelba intaba way arkaan in ciidanku ay khalkhal amni ay abuuraynin ciidamadu kuwan hadlay waxa ciidamada kamid ah waxba kama jiraan weeye waxba kama jiraan kamid maaha aad iyo aad baa mahadsantahay daawadayaal idinkuna waad mahadsantihiin intaan warka xigay ku kulmi doonana waxay naga tagay sidaas iyo amaanaad